shirkadda dhisaysa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda daami ee ifcom construction company oo maamulkeeda guud ee shirkadaasi injineer cawil cali xuseen uu ka hadlay goobtii dhagaxdhigaasi laga sameynayey waxaana uu ka warbixiyey habka ay ugu tala galeen dhismaha iyo sida ay uga go-an tahay inay dhisaan dhismaha ugu casrisan. dhismahan wuxuu ka kooban yahay runtii waa dhismo ballaaran waxaa odhan karaa MCH waa dhaqash hadda geli karaa digaagga xaafadda wuxuu ka kooban yahay laba waaro wuxuu ka dhisan yahay dhulku ku fadhiya waxa weeye 320 mitir iyo 300 mitir wuxuu ka kooban yahay laba waaro waaweyn afar xafiis afar suuli iyo baarki weyn oo ay baabuurta soo gelayso ama goob galkeeda fadhiya runtii waxaa noo nashqadeeyay soo ugu qurux badan sidii ugu quruxda badnayd uga casrisnayd waxaan u mahadnaqayaa mar labaad xildhibaanka oo runtii in badan intii hawshan socotay ugu garab taagnaa hawshan dhiirigelinteeda iyo saan u soo dedejin lahayn maadaama waqti kooban lagu soo dhamaystirayay ifkam ahaan waxaanu diyaar u nahay inaan soo ugu quruxda badan loo dhisno. xildhibaan barkad jaamac batuur oo isna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey tacabka iyo dadaalka ay shirkadani ifcom construction company ay iyaduna dhinaceeda gelinayso xaruntani laga hirgelinayo xaafadda daami ee loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka. xanaanadan aanu dhagax dhigayno waxay noqon doontaa xanaano ka dhaxaysa dadka gacanlibax degan oo dhan xanaano anfici doonta ummadda Soomaaliland xanaano xaafad gaara ama qabiil gaari leeyahay maaha mudana maayir tala badan kadib waxaan isla qaadanay gobonnimaday xaliima samaysay maama xaliimo British in xanaanada loo bixiyo maama xaliimo hadaa la qadaro shirkadda dhisaysa wanaag badan bay samaysay qayb bay ka tahay lacag $60,000 bay noqotay lacagtan hayna waxa ay 10,000 anigu aan bixinayay iyo 20,000 xaliima ay bixisay waxaanu jecelnahay adoo goobjoog ka ah inaan lacagtii ku wareejino oo injineerka dhisaya oo iyadoo dollar lacagtii uu la wareego cid kastoo Soomaaliland jecel horumarkeeda cid kastoo Hargeysa jecel cid kastoo dadka danyarta jecel waa u furan tahay xanaanada inay qayb ka noqoto waa wax dan guud ah waa wax taariikh ah waa waxaanu qofna qaadanay qoysnaanu lahayna qaranka ka dhaxeeya waana wax mustaqbal dheer noqon doona xaafadana waxay ka mid tahay xaafadaha magaalada Hargeysa bartankeeda ku yaalo iyada iyo suuqa wax loo kala socdaa wax ka yar 7 minut xanaanadii ku ballan qaaday MCH-kii ay ilaahay khayr ha siiyee lacagtii ay ugu ay tiri gaariga siiso xaliimo British isaguna ugu daayaqay xaafadda daami uu yiri aniga ilama aha umulahayga amaba dumarka xaafadda oo ku dhiig baxaya marka foosho ay qabato amaba in gaari cad ku guud wato waxaan ugu sameynayaa MCH ilaahay waa aqbalay waxaanu halkan maanta ku dhagax dhigaynaa ballanqaadkii uu sameeyay xildhibaanka aqlabiyadda barkad jaamac batuun inuu xaafadda ugu deeqayo iyadoo intaasoo mas'uuliyiina ay la garab qabanayso oo la dhisiso oo hiiliyo hobay la taagan tahay marka alxamdulillah waxaanu ugu baaqaynaa dhammaanba bulshaweynta Somaliland ama Soomaaliba qurba joog meel wada joogaanba inay gacan naga siiyaan MCH-ka dhismaheeda oo ka u yahay hawshii la sugayay ee aad iyo aadka loo sugayay laga dhur sugayay waxay ahayd in xanaanadii uu ku baaqay xildhibaanku inaan maanta aan dhagax dhigno alxamdulillah ilaahay waa noo suurtageliyay injineerkina waa joogaa nashqadii waa la soo sameeyey waxaan filaynaa insha Allahu tacaala ama sabtida inay bilaami doonto hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaro dadkana waxaan ugu baaqaynaa meel walba ha joogaane wixii wanaagsan ee la qabanayo ha la garab istaago oo cod iyo af ha lagu garab istaago waayo wixii wanaaga inoo soo kordhay waxay u soo kordheen xaafaddeena quruxdeena nashqada waad garanaysaan hadda ka muuqata halkaas aad iyo aad wax loogu farxo weeye haddii xaafaddeena ilaahay subxaanahu wa tacaala MCH-kii xanaanada ay yeelato oo dumarkeena iyo ciyaalkeenu meel ay runtii naftooda iyo magaranaysa caafimaadkooda lagu badbaadiyo leeno dhisayo waa wax ilaahay loogu mahadnaqo subxaanahu wa tacaala barkhadna waa u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu ka baraynaa
ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu garab galo waxaan kaloo mahad u celinayaa marka xigta xildhibaan barkhad oo isaguna si gobonnimo leh oo aan maanta ninna yeeleen waqtigan aynu ku jirno sameeyey oo yeelay oo u huray oo u haneeyey inuu xaafadii MCH u dhiso MCH-ka maanta la dhagax dhigay xaafadda Daami waa tallaabo hore loo qaaday insha Allahna waxaan rajaynayaa in halka ka sii socoto Daami horumarkeedu waxaan ku boorinayaa dhammaan in nagala qayb qaato oo qof walba wixii uu ka qaban karo iyo intuu ka tari karo waa sadaqad jaariya sida ay maaragtay barkhad iyo gabadha lacag soo bixisay ugu hufreen xaafadda sadaqada u bixiyeen jaariyada idinkuna ka qayb qaata xildhibaankuna dee halkii uu gaadhi laangaruusa loo fiyeeyay fuuli lahaa ayuu ugu deeqay dadka labadoodaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa ahsana Allahu ilaykum ilaahay wax ka khayr badan Allah idinku bedelo ilaahay halkii aad ka soo saartay intaas wax khayr ilaahay ku bedelo isagana jazaa'i badan ilaahay ha ka siiyo maadaama uu gartay inuu dadkiisa uga dhiso halkan maanta dhakhtarka annaguna waan la garab taaganahay waxa kale oo aan halkan maanta uga faa'iideysanaya bulsho weynta reer Soomaaliland ama gacan libaaxba inay haddii ay wax ka dhinmaan dhismahan maanta halkan laga hirgelinayo horumarka inay ka qayb qaataan gudaha iyo dabadaba waxaynu goobjoog ka nahay makhraati ka nahay inaynu la wareegnay oo lagu wareejiyey injineerkii dhisayey dhismaha lacagtii loogu talagalay waxa weeyaan lacagta loogu talagalay sida ay sheegay injineerku waa 60 kun ee dollar 20 kun hadda gacanta laga saaray 10 kun oo dollarna waxay ku baxeen kharashkii muxuu ahaayeen dhulka iyo loogu talagalay sida daraadeed waxaan u baahanahay lacag gaadhisa 40 kun oo dollar oo kaasha qof kasto muxsina way u furan tahay inuu ka qayb qaato anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Hargeysa waxaan insha Allah ballan qaadaynaa meeshaas inaanay qabyoobin oo anagu aanu garab taagnaano mar walba oo ku bixin doona insha Allah wax kasto looga baahdo dawladda hoose oo si rasmi ah u ballan qaadayno ma aha muhiimadu dhismaha kaliya guri iyo qolol waa la taagtaagi karaa waana la dhisi karaa isa muhiimada ka dambaysa waxa weeyaan waa joogteynta iyo qalabaynta iyo sii socodsiinta mustaqbalka taa dambana waanu ballan qaadaynaa tan hore imika taagana wixii qabiya waanu ballan qaadaynaa waana naga dhab waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa gobonnimada xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo xaliimo Allah ha barakeeyo guud ahaanna fariin waxaan u dirayaa dhammaan qof kasta oo muxsina oo $1 waa halka ugu yar iyo wixii ka badan ba bixin kara inuu waxyaabaha sadaqatul jaariyada la yiraahdo ee u soconaysa ilaa qiyaamaha inuu qofku ku bixiyo maalkiisa shirkadani Ifcom Construction Company waxay ka mid tahay xarumaha dhismaha ugu casrisan ka hirgeliyay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Somaliland isla markaasina leh qiimaha ugu macquulsan ee dhinaca dhismaha maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho Hargeysa